السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دي سلامي دمان أصحابتي وحرن جنال كسود وهذا ما أنتوا حنكال لنا عيار عان عيارتا واحد يلي باور مورفي إيوه لبنين أو ليجندري وأي عاونين عيارتا واحد كده عدي باريس كوني سديد بقول كونتني سديد دي عيارتا واحد لها أوبرا جيم وحينا كده عدي أوبرا هاوس إن باريس runtii ciyaartan waxaa loo qiimeeyaa inay tahay ciyaaraha kuwa ugu caansan hadaba aan gudagalno marka ciyaarta iyo sida ay u dhacday ciyaarta waxay ku bilaabatay e4 e5 knight f3 and d6 Philidor defense waydaas waxay ahayd defense aad caan u ah kulli maantana waa la dheelaa laakiin se aad uma arkaysid qof dheelayo sababtoo ah Philidor defense bishopkan ayaad waxaad gelinaysaa hakad developmentigiisii ayaad hor istaagaysaa still waxaad samayn kartaa inaad g7 aad g6 ageysid then aad bishopka aad g7 dhigtid balse duke wuxuu dhelay maadaama laba qof yihiin waxaan iska dhaynaa duke wuxuu sameeyey inuu dhelo d6 Philidor defense waa laba nin waxa la dheelaya haddaba ogaada Paul Murphy inkastoo ciyaartan weli la dhaho Paul Murphy wuxuu ahaay indhaha ayuu ku xirnay so ma dadka qaar dhahayo dadka qaarna waxay leeyihiin indhaha muu ka xirnayn ciyaarta caadi ayuu dhilay taas muhiim noomaha marka ciyaarta aan fiirino sababtoo ciyaarta casharo muhiim ayaa ka buuxo aan fiirino Philidor defense Paul Murphy marka wuxuu dhelay d4 askarigan ayuu weeraray duke wuxuu dhelay bishop g4 this is already mistake sababtoo ah haddii Paul Murphy uu dilay askarigan oo ay ayagana askarigan kale ku soo dilaan kuweynta la dilo then askarigan wuxuu noqon doonaa free bishopki iyo askariganna waa la haystaa so askarigan free noqday this marka waa it's not good so already waxay galeen mistake okay Murphy wuxuu sameeyay inuu dilo marka askarigan then haddii askarigan ay ku soo dilaan waa sidii aan horey idinku sheegay waxay dileen bishop takes knight then queen takes so then askariga ayay dileen Murphy wuxuu dhelay very good move oo ah bishop c4 wuxuu sameynayaa attack askarigan ayuu attack gareynayaa oo haddii uu random move dheelo ay dheelaan labadan waxaa ku dhici doonto checkmate in one move so askarigaas marka waa laga daboolay oo waxay dheeleen knight f6 askariga already queenta waa laga daboolay so Murphy saas uga maarin haddana wuxuu dheelay queen b3 oo wuxuu weerarayaa askarigan iyo askarigan kale askarigan yaallo f7 iyo b7 and then waxay dheeleen queen g7 sababta maxay tahay let's say haddii aad tiraadid askarigan ayaa muhiim ah this already checkmate check whatever haddii uu kan dheelo oo ah e7 iyo d7 waa checkmate meel uu aada ma lahan so queentas marka uu qasbi yihiin queen e7 gasti the move ma askarigan uu qaatay no Murphy wuxuu leeyahay inaad xubnaha waxaa jirtay orax caan ah oo uu leeyahay master tal wuxuu leeyahay help your pieces and they can help you macnaha caawi xubnahaada si ay dhaqso bannaan kugu imaadaan ayagana way ku caawin doonaan so askarigaas ma uusan dilin sababtoo haddii uu askarigan dilo waxaa dhici doonto queen b4 check and takes then marka waa waxay iska noqonaysaa ciyaar oo purin ah Murphy ma doonayo ciyaar oo caajis iyo waxaas ma rabo so wuxuu doonayaa marka in uu ciyaarta dhaqso hormariyo wuxuu dheelay knight c3 c6 waxay u daafacayaa askarigaas so ma jeeda askarigaas uu ilaalsanayaa si looga dilin so Murphy wuxuu sameeyey bishop g5 being the knight fardahan yuusan ba iga dhaqaaqin kow waa gartay haddaba haddii hadda aad fiirisid movekan uu dhelay Murphy marka laga tago ciyaarta haddaad fiiriso bishopkan ma soo bixi karo qalcadan ayadna meel passive iska taalla labadan sidoo kale Murphy arg marka waxaa u horumarsan 1 2 3 4 waa afar isagana waxaa u horumarsan 1 and 2 labadan bisa u horumarsan weliba kuweyntana waxay ku jirtaa difaac oo meel kale ma aadi karto overloading ay ku jirtaa hadii meel kale isku aado askarigaas ayaa la dili doonaa so waxaan dhihi karnaa marka hal farda bisa banaanka u yaalo so madowga wuxuu isku dayay Mr Duke wuxuu isku dayay inuu space helo oo wuxuu dhelay b5
this is already mistake oo waa uu ka faa'iidaystay Paul Murphy wuxuu sameeyay sacrifice his knight waa uu dilay and then check waxaa lagu soo daboolay fardaha d7 and then castle queen side already meeshan waxaan u jeednaaba in ay halis tahay sababtoo ah fardahan horta markooda waa biin kan waa biin kan meel uu aad ma lahan oo queentiisa hortaagan sidoo kale qalcadan ciyaartu way ka maqan tahay waxba ma hayso Murphy waad aragtaa 1 2 3 4 ayaa banaan ku taal aan fardahan wuxuu ku jiraa halis sababtoo ah hadii let's say uu random move dheelo fardahan waa la iska dili doonaa waxa qasab ah in queenta lagu dilo hadii aan lagu dilin ciyaartu waa kasii xumaan doontaa oo discover jack iyo waxba dhici doono fardahan ma dili karo queenta ay free noqonayso so it's very very bad position okay say marka fardahan u difaaco waxay dheeleen d8 sorry waxay dheeleen rook d8 si loo difaaco fardahan Murphy wuxuu sameeyay exchange oo wuxuu dilay fardaha then waxa qasaba in lagu soo dilo qalcadda sababtoo ah queenta lagu dilay waa qaali lagu ma dili karo fardahan waa bin so waxa lagu dilay waa qalcaddii kale so qalcaddan bin ayay ku jirtaa maxaa filinaysaa maxaa is leedahay xanuunka intaas ma uga haray maya de fardaha waxa lagu qaban doonaa qalcaddan kale oo rook d1 eeg marka dalbal positionka qalcadda ma dhaqaaqi karto marka koobaad laba bishopkan meel cidlo iska yaala oo queentiisa ay hortaagan dhaqdhaqaaq ma sameyn karo fardahan kale waa bin qalcaddaas kale waxa waaye ayadana waa hurdaa marka madowga waa fikireen waxay isdeen bal waxaad iska yareysan culayska oo queentan weerara oo wuxuu dheelay queen e6 isku day bal inaad qiyaasto waxa uu dheelay Master Murphy he takes the rook check oo qalcaddan ayaa hayso ogow ma lagu dili karo queenta waxa qasaba marka wuxuu isleeyahay fardahan wuxuu ku noqday markaan aan bin wixii qalcaddan dilo uu dili karaa this is mistake already fardaha ayuu ku dilay marka waxa isku daydaan move-ka uu sameeyay Master Murphy isku daya Murphy move-ka uu sameeyay kaba soo qaad legendary ayaa tahay Master Murphy oo kale iska soo qaad isku day move-ka uu sameeyay and Murphy wuxuu sameeyay the brilliant move queen sacrifice queen b8 check haddaan fiirno horta queentan waa la dilaa oo fardahan ayaa iskaga qadeeyo balse su'aasha waxay tahay kingiga meel uu aadan ma jirtaa maya inta ma aadi karo oo waxa ka hayo bishopkan ayaa haysto sidoo kale intana ma aado oo bishopka ayaa leenka dhan haysto intana fardiisa ayaa ka celiyo so queentan marka jaga ku haysta waxa qasab in la dilo and that's already mate sababtoo ah halday qalcadda halkaas imaado d8 is checkmate and this is the end of the game fadlan muuqaalkan comment ka soo bixi like saar una share gareey dadka jeesta jecel wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh